السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. la soo waa injineer axmed maxamuud oo labaad kusoo laabtay. waa cashirkii labaad qeybtii labaad ayaan hadda qaadanayna isfiltiga habka loo sameeyo. horey waxaanu soo qaadanay inaanu qaybinay oo miisaanay. qeyb ka mid a intaan qaadanay aan miisaanay saa idin muuqata. qeybtaasaanu qaadanay waanu miisaanay. markaanu miisaanay waanu qoranaynaa miisaankii baanu qoranay. markaanu qorano miisaanka haddana waxaan miisaamaynaa filterkii loogu talagalay jihaaska in la dul dhigo. filterkiina waan miisaamaynaa. isagana waan qoranaynaa sidoo kale. markaanu qorno isaga hadda waxaanu bilaabaynaa cashirkii kale. caynadan ayaanu qaadanaa iyo filterka. waxaanu ku shubaynaa jihaaska saxan yar uu leeyahay baan ku shubaynaa. markaa saxankaa yareen qaadaya hadda in muuqda. saxankaasaa la qaadaya kaasaa lagu dhex shubaya isfiltiga lagu shubaya. jihaaskuna waa halkaas waa ka jihaaskii baan dhex gelinayaa bartiisii loogu talagalay waa daynamadii wareejinaysay. hadda soo qaada sambalkii. jihaasku waa ka siduu dhan yahay extraction baa yaa la yidhahda isaga. extraction yaa jihaaska loogu magac dheeraa. waanu ku shubaynaa caynadii saxankaasaan ku shubaynaa. electrics ku shaqeeyaa jihaasku. saxanka yar birta u gashan yahay waa daynama hoosta ka hooseysa kor usoo qaada oo haysa saxanka yar haysa. waanu ilaalinaynaa dhammaan. waxaanu ilaalinaynaa inaan wax naga dibadda aado waanu ka ilaalinaynaa ama uu naga duulo, waayo way miisaaman tahay. waxaan rabnaa halkan inaan ku ogaano isfiltiga madow imisa ku jira oo lagu laaqitaankan filterkaan saarna. filterkan wuxuu celinayaa materialka oo dhan buu celinayaa. ka yar iyo ka weyn materialka oo dhan buu celinayaa. wuxuu soo baxayaa bas waxaanu ku shubaynaa batrool daboolkaan aan ku xidhaynaa. waxaa soo baxayaa bas isfiltigii madooba iyo batrool wada socdaa soo baxaya. batrool baan ku shubaynaa. hadda godkaa idiin muuqda halkaa idiin muuqda gacanta ku hayo. saxan kale boolkaan ku xidhaynaa horta. boolka xoog loogu geejin waan ku geejinaynaa si aanu waxbuu soo bixin. filterka xajinaya markaa wax ay material kama soo baxaysa meeshaas. isfiltigii iyo liquidka ahaa kanaan kusii daboolaynaa. waanu xidhanaa isaga. extraction baa lahaa jihaaska. wuxuu ku kala saarayaa isfiltigii iyo materialkii. dhagaxii niiskii ku jiray ama bacaadkii ku jiray yani intii isku dhex laaqnayd oo dhan guduu ku haynaya. filterka xajinaya. batroolkii iyo waxaase soo raacaya iyo daamka dibadda u soo baxay. caagad baan hoos dhigayna halka uu ka soo baxay goobta uu ka soo baxay. batrool baan ku shubaynaa. waa ka hadda batroolka baan ku shubaynaa. si fiican ula socda. godka yare saraan ku shubaynaa batroolka. godkii hoose muuqday markii hore nii muuqday ayuu ku dhacayaa. kaasina wuxuu ku dhacayaa materialka ku dhex dhacaya. maxkii khaldadii oo dhan ku dhex dhacaya marka batroolka gudihii buu galay. waxaa la dhaqayaa materialkii baa laga dhaqayaa isfiltigii madooba si loo ogaado inta percentage ay tahay isfiltigii madoobi. percentage of asphalt si loo ogaado. waa dhaqitaan baa lagu sameynaya. waa khasaalad oo kale way dhaqaysaa. caagad baan hoosta ka gelinayna halkan si iyo wixii madowgii oo dhan halkan ugu soo baxaan. horta caagada hoosta ka dhigano daboolkaasu ka soo baxaya. halkaan caagada gelinay uu ka soo baxaya wixii oo dhanba. electricskan shilina waa ka hadda way wareegaysaa. waxay u wareegaysaa yani surcad aada u fast. waxay u wareegaysaa si xoog badan. yani waxaa lagu qiyaasay 1500 daqiiqadii inay ku wareegayso baasha makiinadu. electrics bay ku socotaa.
break buu leeyahay isaga laftiisa marka xoogu wareega waayo wax joojinaya lama qaban karo, lama joojinayo. Break buu leeyahay loogu talagalay, baashaasaad qabanaysaa. markuu aad istiraado batroolkii wuu dhammaaday, intii hore way dhaaftay oo way soo baxday intii hore aad istiraado, khalaas break aad qabanaysaa oo joojinaysa. waayo waxay u socotaa surcad xooga fast xooga u socotaa, si degdeg u socotaa awgeed break loogu talagalay. breakaasaad qaban markay istaagteed aragto iyo batroolka ku shubay, haddana batroolkaad ku shubay ilaa batroolkaad ku shubto halkan sare kaga shubtaa hoosta ka soo baxay isagoo sidiisiya nadiifa, markaasaad ka joojini. ugu yaraan caagad 5 litir ayaad ku shubaysaa, halkii sanbalba caagad 5 litir iyo markaas tiraado waa nadiif khalaas. adu laakiin waa ku filantaa, laga yaabay caagad 5 litir haddana mar labaad saasaan ugu celcelinayna. kadib waxaan ka saaraynaa caagadan, ka hoos saaraynaa caagadan, ka bixinaynaa hoosta madow ku jirto. waxaan dhigaynaa weel kale, aan hoos dhigaynaa saxan kale si aan u aragno batroolkii oo nadiif ma soo baxay. kolba waan baktiinaynaa, dana waan shidaynaa, break baanu qabanaynaa, saasaan ku celinaa. hadda waxaan ag fiiriyay mar labaad ma ku shubaya ugu dambeyn, haddaan ku shubaynaa tii u dambeysay. waxaad arkaysaa batroolkii oo nadiif halkaa kaga shubtay inuu ka soo baxay halkan. wakada waan istaaraynaa, kaanigeelu istaaray asla fiiri batroolka waxaa ka soo baxaya. batroolkii cadaayaad ku shubtay halkan ka shubtay ayaa sidiisii ka soo baxay. waa kaas filtigii caagadii buu raacay iyo batroolkii wada socday maanta aan ku shubaynay. waan disay oo aan diso doonaa suun yahay. waa kan fiiri filtigii iyo batroolkii oo wada socda, waa kuwaas caagadaas ku shubmay. laakiin tii u dambeysay maxay noqonaysaa? nadiifay noqonaysaa. waa ka filtigii materiaalkii, laakiin halkiibuu ku xeraysan yahay, sidii buu u xidhan yahay.